mid kala ka baxaya marka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكم وادوكم فيديو جنال صاحبيال مركل اي فيديو عصب يوم مانتا صاحب هدي انا عصب هاي نوصل دير او شير نوده او لايك نوده او كومنت نغبحي سكراب موصل سيال مر والبو نص عطب عشرة أصاد يعني يكوسو قاران لايك النوتابو سيدت بلن وقاران إنه وسو حرمان markaan usoo laabano maanta qodobka noo saaran miiska waa ujeedaan maanta waxaan saaranahay sabuuradda oo waxaan rabaa inaan ka hadlo wadooyinka oo laamiyada kuwa highwayga iyo kuwa kaloo normalka caadiga loogu talagalay si u kala xaq badan yihiin ama say u kala sharci adag yihiin. waxaan rabaa inaan intaa ku sawiro ama aan ku diyaariyo iyadoo qoraal ahaan aan u qoro ama aan u sawiro laamigii inaan sawiraan isku dayaa oo aan kugu kala sheego kadib laamiga saxan oo hadduu waddadaas ku jiro oo hadda ugu gasho oo adi ka khaldan tahay waxaan ku kala xaqiijinaynaa waa tii shalay cashirka aan dhigaynay oo ka hadlayay wadooyinka highwayga baabuurta shirka ku galo iyo isgoosyada inay ka dhacaan. marka waxaan jeclaystay inaan hayso form ahaan aan diyaariyo qoraal ahaan aan u diyaariyo kadibna aan ku tuso wadooyinka siday u kala sharci adag yihiin. ila socod wanaagsan. bismillah waxaan sigaynaa laamigii. bismillah raxmaan raxiim. afartan qayb aad arkaysid waa laamiyada waaweynka oo highway oo afarta qayb leh. bartaana arkaysid waa argo ama isgoos dhexdiisa waxaa ka baxaya marka laamiga aad ka baxayo. dhanaan laamiga ka baxaya ilaa meesha isgoos waaye من انت اللي متكلم كبحايا marka aan soo noqdo marka labadan laami waa isgooski qaybtan iyo qaybtan waxa xaq badan qaybtan waa qaybtii highwayga mar alla marka timaadid ama tusaale ahaan marka kan ku timaadid isgooskaasi galin waxa ka xaq badan midkan oo highwayga sababta uu kiyadiya kan oo soo dhaxdarsamaa laamigan oo yar oo saddex gudlaha ah laamiga weyn oo afar gudlaha soo dhaxdarsamaa. waxaa lagaaga baahan yahay markaad timaadid laamigii baabuurkaagii hortaas istaago hubso laamigan maxaa ku jiro. marka ogaatid laamigan isna cidno ku jirin kadib gudub. waxaa kaloo dheer meelahan waxaa ku yaala samaafaro qaybtaan waxaa ku yaala samaafaro qaybtaan waxaa ku yaala samaafaro qaybtaan waxaa ku yaala samaafaro oo kala xadido afarta baabuur ama afartaas jiro. ayadoo tusaale ahaan hadda shalayto waxaa ku jiray shilalka qaar baabuurtii oo sidaa u wada taagan oo wada sugayso in ay leenkan u istaago sugayso oo leenkan socdo oo qasab waxaa kusoo galaa baabuur inta ka socdo sababto qoladiisii kale ay waxay ku jiraan baakin waxaa laga rabaa marka inuu asi sugto ilaa asaga waddada waa laga celiyey wuu joogsaday. waxaa laga rabaa marka waddadan ilaa ay ka xidhmayso samaafaraha oo shikmaayo oo dhahaya stop joogsada adi inaad joogtid. kadib waxaa dhacday lootadan gaariga ku socday in uu jidkaas soo galo waxaana ka dhashay shirkaas waxaa loo sababaa marka ninkan oo aanan ilaalin sharcigii laamiga u yaalay iyo sharciga u yaalay samaafaraha uu ku xadgudbay. wax walboo dhaco hadduu gaari weyn kaaga yimaado hadduu wax kasta kaaga yimaadaan wixii kugu dhaco
adiga ka masuulin sababtoo meel samaafara daaran yahay jidka lagaa leeyahay lagaaga xaq badan yahay samaafara daaran yahay umaba aha in aad isku soo qasabto oo aad xoog usoo gasho taas waxay keenaysaa dhibaato oo ah in adigina sidaadii halis aa gelisay gaarigaagina halis aa gelisay haddaad badbaadane waxaas oo dhan lagu qabsado sababta lagu qabsana wax kale ma aha in aad adiga qaldan tahay sababta haddaa xataa labadan wiil isku fiiriyo waxaa lagaaga baahan yahay samaafara xataa ku celinaynin adi horta ko inaa hakato sideedana waa sharci haddii aad goolad soo gelaysid mar kastoo aad goolad soo gelaysid waa inaad gaabsataa aadan meesha xoog ku gelin waa inaad xawaarihii soo gaabisaa baabuurka soo tiiri gaabisaa kadib afka soo saarataa bidix iyo midig iska fiirisaa wixii kaa jiro hortaada fiirsataa markaad ogaatid in labada dhinacba lagu soo jirin kadib laamiga soo gal ama laamiga gooy intaas waxaa u wadaa baabuurtan waa u wadaa dadka bini'aadamka oo shacabkana waa u wadaa oo waxaa loogu talagalaa ayada naftirkooda waxay qabaan waqti la siiyo dadka adduunka waqti dadka la siiyaa jirto in laamiga gooyaan isgoosida ama laamiyada gooyaan oo samaafar oo kala istaagaayo samaafar wuxuu sheegaa baabuurta wuxuu sheegaa in waqtiga dadka la gaaray ee dadka marayaan ay gooynayaan ida naftirkeeda waxaa ka dhacda mararka qaar ayadoo waqtiga marka laga qaaday oo dadka in qof orod ku soo galo dhibka ku dhaco asigaa isku keena sababtoo ee waqtigiisii waa la dhaafay waa inuu sugtaa waqtigiisa kale maanta waxaan jeclaystay inaan intaas nila wadaago waana ku mahadsantihiin sida aad ii soo dhaweysaan intaa in ka badan waan niiga rajaynaa walaal haddaan ugu cusub tahay mar kale like noo dhe sharena noo dhe subscribe noo saar comment naga bixi waa noo muhiim commentigaaga falcelintaadana wax weyn ma taresaa ninka la soo saar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu halkanna waa duca miidiya janaa fahad markan kusoo dhawo